ninka deefinili yaraadana meel dheer ha kalaadinna waa ninkaan idin hor taagan dabeel awood badan ayuu isku bedelayaa اسمك adiga dadka qaar aniga waxay ugu wacaan libaaxa dadka qaarna waxay ugu wacaan shabeelka laakiin magacayga dhabta ah ka bara dadka waa deefinini uriga arday ayaa tahay noloshaadana waad burburinaysaa looma baahna banaanada inaad ku dagaalanto sida atooriga oo kale atooro inta iska dhigaysa noloshaada baaba'aysa
marka dhaqankan bedel ayaan ku dhihi lahaa haddii kale xabsiga ayaa soo taabanaysaa. dhegeysi isbitoore annaga ardayaan nahay laakiin kuwa nacsiinta mar walbaba ardayda soo weeraraan meel ma saarteen ii sheeg adaan ku weydiinaya. haa waa runtaa waa nacsin maxaa yeelay waxay doonayaan ardayda inay baabi'iyaan marka adiga ayagoo kale miyaad noqonaysaa sharciga ma ka hor imanaysaa. sharcigaad sheegaysa ardayda la dilay dib ma u soo celin karaa ii sheeg. sharciga ma ku marsoonaysaa. runtii taliya adiga wax aan kugu tilmaamo ayaanba ka silaa. maxaa leedahay adiga adiga waxaad rabtaa wax la sameeyey inaad duugduugto laakiin aniga waxaan rabaa qof walba dembigu galay in dusha laga saaro oo lagu xukumaan rabaa aniga. adiga arjun maataa marka haddaba ogow arjun maanta wixii ka dambeeya meeshaan aniga ayaa ka noqonaa. adiga runtii ardaynimadaada way baaba'aysaa wax walba aad doonaysana way baaba'ayaan haddeertan adiga waan ku fasaxayaa weliba waan kuu digayaa waxaan kaar ayaan ku dhihi lahaa ma fahantay. wari dhegeyso sharciga xilli walba wuxuu u taagan yahay dadka xaqa laga galay in cadaaladooda uu soo dhiciyo balse maanta waxa awoodaan cadaalad maaha cadaaladna allaan ka sugaynaa annagaana xaqiina dhacsanayna cid aan hor istaagayna ma laha. عملا على سبعوية ها شيرين قام يقول هذا لايو soo hadal أرضي كلية دكتة أيا لدلي cadaaladda way socon doontaa ani adigana mar kale ayaan wada kulmi doonnaa ha ka baqayna kule taas waan is arkaynaa. هاي فنجاد مسوع تمينا مايا باع لما لهن اوكي باع وريا واحد مكو شيغا إذا بيلا يان كلها معكو هايا ورا فارية سو قلنا يا كيوي كاس ما عرفت سو هذا البعد mudanahan u baahanahay ماشان يجوك ونقاو سو شيغيني walaalka lamadoo gobol ilmaa ku rabaa inay kula kulmaan soo gudbi okay malateeto soo galabe malateeto finkaad wadi maqashaa soo maahan hore ayaan 2 jeer kuugu digay mar saddexaad munkuu digaayo finkiyaama dhulku yaal waa inaad siisaa haddii aad siin weyso ugu ciqaab ayaad maraysaa mar dambe hadalkaaga iyo igu soo noqon shaqadaada cabdhaqso oriyaa awranka kuwan ika waaya waan ku salaam mudane maxaa rabtiin maxaa soo doonteen magacayga waa nayru reer divni ayaan ahay maxaa daran ii sheeg mafiyada CBI ayaan naftan uga cadaabeen maxaa yeelay ardaydii oo idil qofkii xisbi kala taageero qorta ay ka goynayaan ardaydan lacagtii yar la soo sii xitaa way ka baadaan idinka arday ayaa tihiin qaabkee garab idin siiyaa marka haddii aan garab idin siiyo dab ayaa kacaayo dab haddii uu kacana waad ogtihiin meeshaan boolis ayaa ka dhow dhibaatada way sii badanaysaa marka ma aqaan qaaban garab idin siiyo inta dhiman idinka xalista hawshiinana ku filnaada mudane aniga waxaan furo urur dhaho midowga ardayda mar dhow ayaan rabnaa inaan furno adiga haddaad noo imaan lahayd ixtiraam ayaan heli lahayn waana nala aqoonsan haa mudane waa kubara noo imow imaatinkaaga muhiim waay adiga ba haddaadna garab taagan tahay garab buuxa ayaan helaynaa xisbigana ma nagu soo degdegi karaan maxaa yeelay adiga ayaana hor joogo adiga intaad nala joogtidna wax naga halaabay annaga ma laha arday wanaagsanaa tihiin shimuu dhaca furitaanka ii sheeg bal furitaanka goormuu dhacaa ii sheeg beri subax 3 saac waa la furaa meeshaas waayahay waa imaanayaa okay mahadsanid
واي أديك اسكبح rangaa familkayga waxay dhaheen wiil kale ayaa lagu guurinayaa anigana wiilkaas ma rabi adiga ayaan ku jeclahay waxay dhaheen wiilkaas rangaa maalin kasta wuxuu daba socdaa maafiyada intaa wiilkaas ku guurin lahaana waxa ka xignaa inaan ku dilno way adiga maxad dhahday sidaan dhihi jiray leen dhahayno hadda waa ka safiir familkayga dhan waa ka soo tagay waxaan dhaama taqaanaa wiilkaas la guursanaa qof kale ma guursanaa saaxiibteed markino gurigeeda hadda iskaga noolahno gurigeena waa ka soo cararay ayada iskala joogaane sangaataale la jooga yaa kale la joogi lahaane gurigeygii usoo gurtaana ila joogtaa adduunka ma saarna awood kala geen karta balkaabo iyo barahaamin ayaga inay isjeclaadaan anigan maadaama aad jeclaad cid ka geen karta malahan adduunkaana ma jiro labadeen qof noo kala saari kala diin waay iyo isku mid maahan hadda waxaan diyaar u ahay adiga inaan ku guursado laakiin marka hore hama ayaaro fasax inaan ka soo qaato waan huwa asiga fasaxiga ma diidaayo waan ku kalsoonahay midaas fiiri abaay haddii lagu aroos xitaa saaxiibtaa koowaad soo ma ahaanay waayahay ururka midowga ardayda waa magac runtii aad u wanaagsan oo weliba ardayda loogu talagala teeda kale waxaan doonayaa sida aad iskugu duubnaateen wax badan inaad u qabataan ayaan rabaa aniga teeda kale tilaabo walbo aad qaadaysaan waxaa loo baahan yahay idinkoo isgarab taagan inaad qaadaan haddii kale dhexdiina hadduu wax kale ka abuurmo balaaya imaanaysa looma baana balaayada wax walbo idinkoo isla og waa inaad qabataan mamasitiin dayr hadalkayga si fiican u dhageysta shacabka waxay sameynayaan inaan fiirino ma aha waa inay shacabka fiiriyaan waxa annaga sameynayno ururkan waxa ku jira dad daneedsyaal ah oo wax walba dantooda ka hormarin lacagihii wax walba aan heli jirna eega qaateen waxbarashadana xitaa galabgalab waa maxaa sameynaa haddii sheegba waxaas waxa ka dambeeya la yaqaana waa ururka shuuciyiinta weliba waxaa jiraan qolo gangistaryaal ah oo ayaga intay matalaan waxay doonaan shacabka ka samaysanayo annaga waxay rabnaa inaan kala firdhisno laakiin taas mid dhacaysa ma aha waxaa loo baahan yahay annaga inaan isku dheganaano waxaana hor taagan maanta mudanaha waaye waayahay mudanaha la jirnaa mudarnaada ukaadii dhalinyaro dhammaantiinna runtii qaabkaad iskugu duubantihiin aad iyo aad ayaan uga helay mar walbana aniga garabkiina ayaan taaganahay dadka tuugada ku tilmaamaysaanna waxaa igu balan ah qaabkaad ula dhaqantaan anigan inaan ula dhaqmo waxaan ii ballan qaadayaa maanta wax walba idinka akeentaan aniga inaan hoggaamin doono mar walbana garabkiinaan taaganahay wax niiga halaabaayana ma lahan tuugadaasna waa la dagaalamaynaa katag wejigayga mar dambana waxaasoo kale haddaad ku kacdo waa ku jarjaraa ogow adigana waa daalay biyo qabow iga soo qabaa suunkan mudane raada ayaa raba inuu kula kulmo soo fasax qandaraaskii raajaa bandari adiga inaad qaadatay ayaa maqlay qandaraaskaana runtii dadkoo dhan ayaa loo soo bandhigay adigaana qaadatay wiilkayga markuu ku imaadana waad garaacday oo weliba aniga ii shaqaynayay adig maa lagu garaaca marka nin la garaaca camal maxaad ugu hadlee tan kale darawal xumo waa qaladuu galay ciqaabtiisana waa la marsi adig mar hore haddaad imaan lahaadna ciqaabtaas ma mari lahayn waa ka badbaadi lahaa adaa soo daada midda kale maxaad sidaan iigu fiirinaysaa aniga ma waxaa rabtaa inaad i jarjartid marka hore waa inaad ka fiirsataa qandaraaska aad qaadanaysa haddii kale indhaasaan aad u taagtaagaysaa wixii hore waa laga soo tegay haddeertaan waan ka raaligelin raallahabuu ku leeya raallaha maa la wadaa wax walbaba inta qalad laga galo ingiriiskan xunkaa soori soo saar annaga wejiyadaynu ka aragi laxasil imood soco waryaa muraali
walaalkaa soo socda inaad doonto waaya bugan oo ka imaanaya haddaba ogow adan kugu hadlayna aniga lacag ma bahaye ya yacni mootada baa halawday shidaalna ma lahan maxaa sameeyaa marka aniga waxbarashana waa leeyahay inaa baxbaa ku qasbana hadda aniga xiisaa leeyahay lacagna ma hayo mootada ma shaqaynayso waa kubara waqtiga haygalumin waxbarashadada muhiimiya neeru uu sheeg anigu waan baxayaa isaga ha doono mar wacday neeru aawe wuu joogaa maxaa ka rabtiine waryaa neeru adinka ma imaadeen maxaa soo doonteen ii sheega bal maya arrinaan rabna inaan ka hadla hadalna shaalsiina ku rabi shaalsiin miya hay sii baxa anaa idinka daba imaana fiiri wiilkay gaandi wadan oo gaandi beela waaye gaandi muxuu iga daba doonaa ismaa fasax haysto adiga maanta kuliyadda ma aadirtime maxaa kugu dhacayne caadi waaye aqi hor u wado ninkaas oo fuli waaye iska dhaaf anaa isxalinaya wax walba anaa dhaka dhigaya ciyaarkey ajoogsa baarintaan oo labadan beri socota maxaa waaye oo foodadan iyo xisbigan oo lugta aa gashatay maka cabsiyaysid miyaa waxbarashada inay ka halaawdo hadhowna aad dhib dhex gashid marka ciyaarkey waa ku tuuga waxaan iska dhaafaan ku dhihi lahay ardaydeeda xisbigooda haddii loo gacan qaaday ma aamusa aniga adiga waxbaa ka baqin anaa wax walbaba xalinaya anaa okay ka dhigaya okay ba wayna keen adinka kaal soo socdaba maxaa jira ii sheeg bo kan waxaas rabaa unuka inasna dacwey laakiin maanta usaa shafuufiyeyna waa khariifeena oo kaalay kuliyadda saar ayaad dhigatiin soo maaha marka ma waxaas moodeen balaayo casir oo sidaan inaad atoorayaal ku dhaqanaysiin maa soo haysataan xisbigeennaaba dacweynaysiin soo maa dadka adiga kuu shaqeeya waa dad maafiya ah weliba shicibka ayay baad ka qaataan ardayda xitaa baad ayay ka qaataan maalin dhoweedna wiil arday ayay kolleejka ku dhex dileen taas adiga mala socotaa ii sheeg bal adiga ayaan ku weydiinayaa maxaad iga weydiinaya oo ma waxaad mooddaa carruurta aniga ii shaqaynayso in aad wax ka qaadi kartid oo nacsiin ay yihiin waxaad ka qaadi kartaaba yaraatee ma jirto waa isdaalinaysaa meeshaa waxba kama qaadaysiid soco kaalay waxaa rabtaa maaho qofka dili wiilkaas aniga si fudud waan ku ogaan karaa waayahay ord raadiya soco walaalkayga markuu isoo wacay aniga hore ayaan ka soo baxay kuliyadda ayaa dhibaato ka jirta ayuu idhahay aniga walaalkayga dhibaato ku jiro uma dulqaad yaa khafiiri waxyaabaas yaryarootiga mar walba way iska dhacaan waxaas waa waxaan annaga xallin karna marka adiga biyintaad iska joog meeshaad ha soo dhaafin okay wiilkayga walaaliisdii laga xanaajiyo madagayaa ku dhahay ilaa ooga soo aaro saana uu xanaaqsanaana dabeecadaana ku dhalay mahi waxaas iska dhaafan ku dhahay waxbarashadiisa barta ana iska shaqaysta haddii kala maayno beerfaloogiisa u soo jeesto tuuladana ha aado abo dadkan cadow waay inaa maan ka daawana baadda ee maalwalba naga qaadana waa ku fiirsanayna maano cuntaa cunina dhara xirnayna kadibna waa ka cabsanayna miya hooy abo eega mar walba waxay rabaan anaga dadka inayna baadan laakiin midaan uma dulqaadanayno waa la soo dagaalamayna hadda waryaa fiiri adigu af dheertaya kaawadaha iyo guddiga ka dab ordaysid iska dayaan ku dhilaa walaalka ha ka xanaajinin maxaa kaa qaldanna waxaaga baro kadibna guriga dib ugu soo laabo ma waalan tahayna yaaqe waa ku barya wareerka iga daa hay hooy gandi wuxuu ahaa nin nabadeed walaalkeena waa nin nabadeed saas darteeda baajuu waa aade asagaan kooda hor isdhaafinaynaa waa bixi kadibna waa iska baashale maahano annagana dadka wax walba naga samaysanaya miya innaha maan ka daawanayna marka
waryaakhi mar kastaba dhibaato ma dhacdo marmar unbay dhacdaa marmarkaasna waa la xalinaa hadda walaalkayga iska baxdhaa dhibaato ma lahan baraada jilaasi oo ku hanjawaay xitaa aniga waa maqlay laakiin maxaad ugu aamusay adiga ninkan waxaaba kaaga dan aturaaturaal iska dhigaa dadka dhan waa liiloobe wax walbuu samaysanaya laakiin inaha ka daawanaya wuxuu doonaa samey maxay gal dhegeyso maanta iska nas adiga berina waad laabanaysaa meeshaad dib ugu laabanaysaa wax inta ka dhacaya annagaa joognaa isku mashquulin dhibaatadan ilaa ay ka dhammaanayso aniga gurigaan kama tagaayo haddaa aniga baxayana dhammaanteena waa wada baxeena qof igama heraayo shib naga dhawaryaa balaayo madax adag anigii ilmahan way i dhibeen wax iga maqlaaya ma laha aaba macan adiga waa la socotaa walaalayga sidaan u jeclahay okay wate magaalada waad soo wareeji bax maxaa sugaya waraa fiiri shaqadaada qabsa aniga haygu mashquulaya doqon
yartaan ku salaame hee runtii aniga waxa waaye gabdhaha inaan la hadlo micnaha ma awoodo laakiin maanta adiga codkaaga markaan maqlay waxaan niyeystay in aan kula hadlo maxaa yeele aad ayaad u cod macdahay runtii codkaaga ayaa isoo jiitay run ahaantii ayeeday waxay dhahdaa maantaoo kale gabdhaha aan la qabin markay qabaystaan ee dhar qurux badan xirtaan ee heestaan ee dhaqanka iyo xeerka ee maraan waddadiisa oo cilaan gaduudna ay saartaan cilaankaasna uu gaduud u noqdo waxay helayaan nin wanaagsan ayeeday saasay dhahdaa anigana saas darteed ayaan u heesaa horta codkaaga aniga waan ka helay laakiin midaan ku weydiin laa jirto macnaha weli kuma weydiina cilaankaaga inuu gaduud yahay marka may tusi kartaa yarta hal mar magacaaga may sheegi kartaa lakshmi hadalkayga si fiican u dhegayso magacayga waa neyro gurigiinnana waan imaanayaa reerkiinan kaa soo doonanaa mataan libaaxayga hay jaceelaa ku gala jaceelaa ku gala hay qofta shidantahay ujiya walaalkeeni jaceelaa gale lu farxa khatar waaye sakuuro qof maca waaye haddaba tada aruuskii soo cunaynaya bas waay ani maalmaa ujeedada catooye horyaada labalabintaa nagu filan nabadii aan meesha ka tagno هاي ما حد عشقة محلو قبل إيه wax la qabti ma lahan wadii wax la qaban lahayn ninkaasan ba ka shaqeey laanahay anaga shaqadii la qowr reebu saa hor istaagay lacagti markiin 10 u sheegno 5 sheega markiin 20 u sheegno 10 sheega unugu markii oo la shaqeeyna ninkaas qandaraaska markuu qaatay oo dhibkan keenaas hawa ujeedaa war intaas oo kaliya ma shaqooyinkoodan afkaas kullu saaqaatiha ininka qalad ma ka fahansatiin aniga la hadlayo وكذيك يا أخو كذا مسكينة تيها نكاس وقوف معي واحد ناس كهذا هذا أنت عندنا ميزة كوسيلس نكاس كلام العامينها ها مضنه نكاس هذا صورة إيمي عكبدي شقد لما نأكل وحول بس أنا جور استاجا مصيبة سنويا أنك مالين كست عثمان نباي نكاس إن أذكر لحنا الله بهنا لما شخص مبنى يا قيكن عكاس فيري مرر اللي دليه هذا أنا عليوس هذا مكعب سهوسة مس احترام واي وحاي شيك به ورياضي إذيك استجي حناق وحبو ما هبيو إيه وح أيو كليليا مركا ترتيب يا لو والله هذا يعني كاس استجي كل إذيك ما ترتيب لو هذا يا أخي ترتيب والله يا أخي عاد واحد فاهم وسيد مالهن نين كان واحد كسوق سيدان بدرام لا عمي وفسح له أنا عدت جراي مرة وفسح له جب مكسور ريبلين جب وراديك واحد ناقصنتها صارفتن إن أو هذا الشو الله مبانا وحول بدقنان أي الله دمينا يا استجي مركا مدن حدد كيني دان وحو حناقسن او سي درتيس وايان كلاي ادنا عامسان دوسا ما حن سمي ورا مدن نفتركا ورنت wax ku sheega laada war anaka meed amalaan kharabna war waxaan cunno waxaan cabno ma heesano maxaa war nacasnimo awaad loo riyaa isdiji anaga afar maal oo kaliya baay u dhimanayna heerkaasna ogolanay meen ila taaniga nakana israa maxaanu meeway maxaa dhacay darbarinta waxa ay u sheegaysaa anigana waxa ay sheegaysaa midaas lama baahna hadhow dadkeena dhan suuqa ay baahi la imaanayaan marka reerkan inay baahnaadaan mudul qaadan karnaa baaya deedis ani maxaa iga jira waxaan rabo ayaan qaadanayaa taasi wada nadiif ah ma ahan wariya fiiradi wax ma dii sheegay mase waadi aan jabaysaa ii sheeg bal waa ku kala saari lahaye wariya qaraabo maadna marka aniga aan ku hanjabaayo wariya labadan tuuladan oo kaliya naga dhaxaysa marka qaabkay kugu hanjabaa ma ii sheegi kartaa idageyso ani qadaraaskan rabo waan qaadanaa heshiiskan rabana waan gelayaa maxaa kana jira wariya daqiyo
darabalkayga markii aad garaacday dhibaato uma arkin markii isdijiyaan ku dhihi lahaa waayay maxaad la soo indhacadda ka garaaca adigaaba garaacane war ay dhegayso afar canugaad soo kacaysatay ani igumaan dadi kartid meeshaanna ku maysanaysid ord wejigay ka tag idhaafaan ku yirsa waryaa oday oo kale inaan kula hadlaya halkan u imid laakiin qeylaa kaa soo horayso qaabkan aniga ma aqaano war aniga akhlaaqii la hadal baan ku yidhi edab maliide wasaq baa tahay kelab مدنونك وعلى ربنا عطرتان وحول بو سمعنا نربحش لو نفتن وعاود الخادين معي walaalka eegan anaa u dhameehay walay ama raacin dilo sharba dhulku ku xiranay ku il badan aad masku darbaxay baaga talaaya isku darbaxay saqajaanka usmac isku maleyn dadkoo dhan iska awood badan yahay war awoodaas leeyahay malaha wax si aan hadaa la tusaa anka beega soo gishtimo anaa ka shalaysiya balan waa sharbanka siisiiba waa rifa waxaan ku reebay malaha war mudan warkan badan iska deeno xanaaqan isku badan war ma noo sheegi kartaa le waxa uu soo sameeyay noo sheeg sameeyeen uu ka akhriyo adiga buuqa jooji wasa ixtiraam wayna waxa suuq abrala masuubino dal ixtiraam oo jabina war ixtiraam ma wara kan hadisno fasiix waa caloosha sakiina ku jeexa ciil war tuugeena minika oo ku tageena oo ku gubeena maxamed u taaganaay antagna hadaba soo kabiyeenay nakena donga intii jooji subag subag waraa subag albaabka fur albaab fure waqti xun socod maxaa waay saacaan imaadey fiidkiila miska imaadido soo galle mugo xoogaa aroosaan ku soo saamatuleyle ma ogtahay 8 saac baan nimaan ka soo baxay marka shaki ay galay waxaad moodaa qof in uu soo daba joog marka sidaa darteed waxaan ku fikiray inaan intuu waa ka baryahay asaasaa ku fiican waaga disbariyan iska bax tartiibka war anii fiiri xilligaa rabaan baxa kowdhe cidnan meeshaan igumaan dadi kartee waa sii socona aniga
daawadayaal shalsaaniya dilkiisii kadib dhibaatada waa ay sii badatay magaaladana dilalka iyo buuqa waa uu ku sii batay ciidamada booliiskana ilaa hadda wax way ka qaban la'yihiin oo way ku jaawareersan yihiin hase ahaatee saraakiisha booliiska kuwa nabad sugidda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada saraakiishooda ayaa isu yimid si ay shir u wada qaataan fariista hogaamiyihii la dilay ee xisbiga shuuciga ninka lagu magacaabo shalsaney waa la dilay waxaan u baahanahay dilkiisa cidda ka dambaysay hay sababee waayihi yaa ka dambeeyey cidda ka dambaysa waxaan u baahanahay haddeertaan in la ii sheega dhaqsada madaxdii naga sarraysay annaga wayna soo wacayaan waxayna weydiinayaan dhibaatada halka ay ka jirto waxayna leeyihiin soo sheega wax qaldan iyo wax loo xallin lahaa laakiin sabab ii sheeg aniga waxay ila tahay arrinta iskaashatada gaadiidka inay isku dagaaleen weliba raaddaa dharbaaxsho ayaa hore u loogu dhuftay waxaan u malaynaa marka dharbaaxshadii lagu dhuftay inuu ka xanaaqay oo dhibaatadan ay middaas keentay taas ayay aniga ila tahay waxaan ku weydiinayaa hadda ka hor annaga dadkaas ma soo xirinoo ii sheeg sababta ayaga khilaafkan cusub ee ayaga haddeertaan u kiciyeen waa maxay inaan ogaado ayaan u baahnay maya aniga waxay ila tahay raaddaa arrintaas inuu ka xanaaqsanaa kadibna taageerayaashiisa ay ku qalqaaliyeen ninkaas in la dilo saas darteedna ay dhibaatadan u dhacday aniga sida ila tahay haddaba ardaydii raaddaa waa maxay wax ka dhexeeya xiriir weyna ka dhexeeyo raaddaa ardaydaas ayuu garab siiyaa ardaydana raaddaa ayay garab siiyaa ardayda raaddaa maxay garab u siinayaan xisbiga ardayda maxaa ka dhexeeya ii sheeg inaan ogaadaan raba aniga ii sheega CBI qaar ka mida ardayda ayay dhacaan qaarna way dilaan saas darteed raaddaa wuxuu ku qasbanaanayaa ardayda maadaama isaga ay taageerayeen inuu asna markiisa uu difaaco garabna uu u noqdo taasaana keeni karta sidee ku dhici kartaa in xisbi gudaed qof lagu dhex dilo ii sheega dhaqsada waxyaabo badanaa jira ay ku taageeraan baad badan ayuu qaataa xisbigaas waa la ogyahay gaanis shafnatii xataa waa ay taageeraan iyaga garab ayay siiyaan arrintaas ma xuma ardaydii raaddaa maxaa ka dhexeeya ma aqaanaa ninka taas raaddaana ilama ahan inuu dhibaatadaas geysanayo ardayda qaarna maba jeclaba in gacanta laga hadlo haddaba yaa samayn kara ardayda dhexdooda waxaa jirto qayb ku kacsan maafiyadana waxay samaysteen tiim kale oo ardaydaas ka difaacda waxaana hogaaminaya rahanuu waxuu ka soo jeedaa tefanow wax badan ayaan weydiiyey asaga ayaana arrimahan oo dhan ii sheegay iyo sida ay wax u jiraan intuu ii sheegana taliya waa intaas wax intaas ka badan ma ogi qofka la dilay keliya waxaa sheegi kara misis raaddaa waayo soo maaha haddaba haddii ay sidaas tahay waxaan u baahnay ninkaas in layla kulansiiyo weliba isla maanta waa inaan la kulmaa ribood degdeg ayaan u baahanahay سلام تلي ورياه رادا لكالي ويايا تلي اوه تليها وين انا امانيس ملينين يا اخي اي فريسو صاحب مقالدو idil waxay kugu tuhmaysaa dilka sharsanay adiga inaa ka dambayso war dilkiisa ninkaas aniga maxaan ka dheefayaa صاحب aniga wax walba waa la socdaa labadiinana wada shaqayn xogan ayaa idinka dhaxaysay waxaad ogataa arinka gaadiidkana inaan ku wada lahaydeen markaa isku dayin inaad aniga horteeda been la imaado runta ka hadal warya oo ay jirtaa ninkaas iyo aniga isku shaqo inaa ahayn laakiin haddeertaan waxaas waa ay dhammaadeen markii aan xirtay labadana kadib wax walba waan dhameeyay aniga haddaba haddii ay sidaa tahay ardayda qof ka mid inuu waxa samayso lagama ardayda maxaa ugu shaksan tahay war adiga waxa samaysaa waxaa samaysaa eeyaha booliska u diraysaa kadibna ha ku soo ororayaan adiga haddaa dhagaxta sharciga ha u gafi qalad ayaa ay fahmaysaa aniga booliska eeyaha kuma dhihin ee waxaan ku dhaha booliska eeyaha ay leeyihiin soo dir kadibna ha urursadaan maxaa naaqday
warayaasha timacamiis ay dhegeyso adoo noocadan oo kale booliiska waxba kama sheegi karo gaashaalla maxaa dhacay waxaad iska dhigaysaa jaahil looma baahna aniga waxaan ku dhahay mataqaanaa booliiska eeyaha ay goortay ahaataba gacantaan kugu dhigi doonaa waana ku soo qabanayaa shaqo wacanaan ku leeyahay wax badan maana sugayseenne maymaya haddaan imaan dhib malaa naga raalnaqda midaan ay ureerisay maantana waxay dheh kan maa xirtaa ugu dambeyn kanaan u soo xirayaa dhib ha noo arkin yaqi waxay taqaana ma lahan socno adi naga tag xoogaa wada hadlaynaaye fiiriye bisadda ma xishoonayso laakiin libaax buu xishoonayaa inaad xishooto lama baahno caadi iska dhiga xabadda galan ku dheh gabadha waa diyaarsata mujididu xishood badan waa dhibaataya libaax sometimes ma xishoodaya run ahaantii libaaxa duurku ku fiican yahay ama shabaq inuu ku dhex jiro sida walaalkaa camal abbowe haddaa runta kuu sheego dumaasha jegay kugu tahay qofaan iidahan kumaba hayano ayada ku dhigan ku dheh wejika wejina u kulannaa iga codsatay adigana ma wahadlow sidee maxaa kugu dhacay maya logshumaysad malaysid maaha macnaha walaalkayga wuxuu dhahay gabadha isoo tus saasaan ku keenay haa dumaashi anaa ku dalbad waxaa rabay walaalkayga dooqis inaan arko ugu dambeyn waa ku arkoya hadda marka waxaa rabaa inaan isku soo bixisan iyo kale inaan ogaado waayahay hadda fiiri ma isku qalannaa okaade isku soo dhawaada labadiina isku soo dhawaada beelo qaysi liila camal iskugu soo bixisanaadeenano caadi matiin mahadsanid lakshmi yarkan waa walaalkayga yaraantiisa ilaahay hadda aniga aad ayaan u jeclahay saas darteedaan kugu keenay oon kuu baray haddumaashe waa run hadalkiisa guriga maaragtay hooyaaba ninkaan naa kale la rabaan anigana waxaan ku dhehilaa qofta kaliya u qalanta walaalkayga waa adiga dumaashe adayna maba u baahni dhaqsi imaadaya waa isguursanaysin dhaqsi imaada hadda aniga waa sii baxaya yarkeenero waxaa maqlay shanashtanii in la dilay magaalka dhanna waa khasan yahay marka waxaan dhiilahay taxadira meel walba u socotiinna iska ilaaliya adna waa imaqluusaa umaleeha taxadiraan ku dhahay okay kii kalena aawi santankii yariiska ahay ayado tartiibi ayaa dhiiqadaha ku dhicin isilaali in aniga waxaan aaminsanaha ardada iskuulka dhigato booliiska inay xiraan xitaa ayaga waa dabaalo jecel ma laga samaysan karo yaaqi ayaga maxaa ka qaldanna jecel wixii ka yaqaaniin ma lahan masaakiinta ma iska dhaafaan hooy macaan dadkaas xisbi fiican waaye nacsiintaas waxay isku dayaan inay lacag ka qaataan laakiin adiga shaqadaada qabsan anina shaqadeeda ayaan qabsanaya hooy macaan okay korigoos ani waxaan ku sheegay booliiska ma aaminsani abbo niiru saldhigga imaa gelinka dambe inaan kula hadlayaan rabaa maxaad igala hadlay dil ka dhacay maad aniga iga shakaysan tahay ii sheeg bal waxaan u baahannahay warbixinno yaryar inaan helo waa kaxumay tali ma haya ani warbixinta booliska ee kaaraan maxay tahay ii sheeg maxayna kuu soo wici waayeen hayabowe kuwii ku soo dacbayen soo mahanna adigaa ka walwalin annagaa joogno waa dilinaa gacmaha xataa waa ka jarjarinaa balan anigaa kaa qaada waa adaan kula jiraa fiiri wiilkaygi booliiska hadday ku imaadeen way ku wadaayaan wax way ku weydiinayaan haddaa qalad lahayn way ku soo daynayaan marka naftaada ilaaliyaa ha ismurjin hooyo macan fiiri waryaa walaalkaa garabkiis taagnaawayaa doqon qaylo badan adigana walaalka garabkiisa istaagayaa haddayicin waan ku baryaa iskaashada yaaqay qalbigana isku adiga mar miigu qalin habartay aniga waa la hadlaayano booliskan waa beenlayaal wax walbay samaynayan aniga muu dulqaadan karno hadda garabkiisa anagaa taagan
hay adiga halkan maxaa ka soo doontay mudane saaxiibkayga ayay soo weerareen haddaan ka soo gaari lahayn naftay dhaafin lahaayeen dhaawac xun ayay u geysteen bal fiir hadda dhabarkiisa saasaan ku imaada meesha waxaan iyaa ka dambeeya shabzaafi ciidankiisa mid ka mid ah ayaa dhibkan geystay weliba kollejka ayuu noogu qofka waxaan sameeya nagama badbaadayo waan dilayaa run ahaantii horta magaaladan maalinba maalinta ka dambayso waa sii waxays mooyaa ani xisbigayna dhulkas ku calgas mooyaa saa inaa qaato habarteeday ka tahay idinkana intaa aa iisoo bisaar weyntiin beesaa rabtiin shug baa un joogsada koon runta marka idin sheego ninka raadaa la dhahay ani wax managa dhexeeyaan cadowgeega waaye teeda kale waxaa ogaatiin gaadidleyda dhan waa isbiirsadeen usay la jiraan anigana waa la iga soo horjeestay aniga ma arkinoo xisbigeega dhulkas galooya teeda kale waxaa ogaatiin aniga qaranka inaan u shaqeeyo weliba xubin muhiima aan ka haayo laakiin wax walba sidooda inay ahaadaan lagama maarmaan waay idinka meeshaan cunowle ma u imaahaysiin maxaas ku warmooyaa wixii ku warama hadda dhagaysta nacalaala shaatii weyntiine ani waxaan rabaa xisbigeenna afkiisa in isku hadlo ninkaasna al-ultimna turuq inaan siino nafta u keenayna fadhiista shaydaanka iskanaar fadhiista horta dilow haddii tahay ani diyaar oo hala dilo an naftikay qofaa dila ina adeero ninkaas yeelima kow baan ka siinaya ma garanaysaa horta suga ani dhegaysta halkoo mutuneel gabowka quus macquul ma ahan wax walba waxaa la rabaa sidee yihiin in la waxeeyo ninkaas dhiiggiisa galaas aligu soo show al-ultimina waa cabaa waryaa nacasi oo adigoo cabsi naagtaada gacan ha u qaadin soo kuma dhihinna ii sheeg hore ma kaaga diginoo midaan waryaa hadeertaan waa samaysay mar kale haddaa isku samayso waa ku jarjarayaa hadeertaana meeshaan ka tagsaa bax waryaa waryaa naagasharaa waa inaa ii wacdaa dhaqso marxaba waryaa raw intaan ka badan aniga kuma sugi karo lacagteeda galabta 10 saac waa inaad ii keentaa haddii kale wax walba ayaa iga soo rabo wala saliya ay waxba u soo cabsanin minkaas waa la soo gado haya markii la soo gadana wax walba waa saa hagaagay waan ku imaanaya waxa loogu talagalay vanga fate in lagu dilo dukaanka rangafi ilaa hadda lama oga sababta loo diloyo
uuku waxay dileen shalsaane iyo xubin ka tirsan unuga xisbigeenna hadda xaalkaana shiraan iskugu imaanaynaa mudane waxaan rabaa inaan kuu sheego dadkaanaga buri socdaha idinka soo day adiina diyaasha ma joogo oo raaddaa dili karo saas daraaddeeda aniga tamilna hadduu idinkaga soo dalbade waxaan u baahanay ninkaas dukaankiisa nabturuq ina ugu keentiin haddii ugu keentiin wax walba u baahantiin waa nigu fardhiya ilaa ka dhuustiin maxaa waay saane meeshan lagu ciyaaro orda xagga naga taga maxaa waa ayaga يا رضا وكاس ولا ولا لو كبرين هذا كلام ولا لو كبرين هيك تيجي ولا إلى هذا الله ولا ديكيس ولا أوريا إنجليزي إسكاليك وحي كتنبينا adiga warbu hogaaminaya ma fahanti dadkan adiga inaa hogaamisa laga rabaa adigan kugu ogahay
saaxiib dhegayso walaalkan booskiisa cid buuxinaysa ma laha inaan fadhiisano gacmaha iska laaban waa laga fiican yahay waa inaan ficil samaynaa run waay qoftaga sooma laabanayo dilka qofka kama dambeeyo aniga og CBI-da ka dambeeya aniga waxyaabo badan ayaan arkay intaan magaaladan joogo waxyaabo kala duwan ayaan ku arkay qof walbeetana ma goorta la dilaayo ama xilliga lagu soo socdo anigana balantii aan qaaday dama hadeertaan waan ka baxay waan iska tagayaa marraba meeshaan aniga inaan sii joogo balantee waayne aniga ma awood adiga inaan ku guursado walaalkaa dhintay arooska maxaa iska khuseeyeen teeda kaleeta aniga meeqsanaa ku soo sugaayo ma og tahay darta ayaa lii ijaafaysanaya waa u soo adkaysanaya maanta markuu walaalkaaga dhintay waxaa idhahaysaa kuma guursanaya miya wanta haddii aad i guursanin beri aad i guursan kartaa beri haddii aad i guursanina beri dambe ayaad i guursan kartaa fahantay isku day duruufaan aniga ku jiro maanta kuguma guursan karo wax kasta waan kuugu samraa laakiin haddaa maanta i guursan weys dad kale maa badbaadinaysaa ii sheeg adiga maya sidaasaa dhin adiga inaad i fahantay isku day waa ku baryaa war nafsadaada fiiri isku xishow maxaa samee rabtaane aniga waxaan rabaa meeshaan aan ka tago tuulida ku laabto runtii kadibna waxaan rabaa howsheedii hore oo iskaashtada baabuurta inaan ku laabto aan guddoomiye noqdo adiga orda iska bax asagaana la soo hadlaayo hadda walaalkiisa geerideeda ayuu ka naxsan yahay iska bax marka soco kaale waa baxa maxaad ka waddaa baadimaa dib ugu laabanaysa aqalxumadaada meeshanna waad u jeeddaa walaalka meydkiisa ayaa yaallo meeshaad u aarlednaad ka tegee war fiiri annaga dhan garabkaagaan nahay waxaanu idil adig ku garab taagan yihiin doon wori annagaa garabkaaga hawshaada qabso haa walaal adiga ha bixin iska jogoo ku baryaa haddana kaan guriga u laabanina waa farxina waa baashalina ha noqde soo soco hayladna marnaba ma imaadday qoftaan hooyadaa miya maxaan samaynaahe waa nasiib dare soo fadhiiso shantamaa gaxwo keen dhaqso soo orod fadhiiso waayahay marwaradna oo qaxwada cab soo dhowow waa mahadsan tahay see tahayne waa fiicana awal gurigeena farxad ayaa ooli jirta maantana murug ayaa taala fiiri dadka si wada qushuucsan yihiin haa wax walba indhihiin ayaan ka dareemayaa farxad hadda wejigiina kama muuqata fiiri rangaa arooskeenu muxuu ku dhahayne ugu ogolaaday maalin farxad leh ayaan idiin diyaarinaya oo arooskiin aan ku dhigno annaga ರಂಗಾರತ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣಮೇ రంగరంగ వైభోగమే కన్నుల బిందు ఈ బంధమే
కొత్త సంబంధమే రంగు రంగుల కోలాటమే పందిరంతా సంతోషమే చక్కనైన ఈ జంటకి కళ్యాణం నేడు జరిగేనులే సన్నాయి రాగం అదరాలి మేళం పందిట్లో పాటకి కుదిరింది తాళం సన్నాయి రాగం అదరాలి మేళం పందిట్లో పాటకి కుదిరింది తాళం రతనాల దేవికి కళ్యాణ యోగం కమ్మనైన కాపురానికిది శ్రీకారం రంగారత్నల కళ్యాణమే రంగరంగ వైభోగమే కన్నుల విందు ఈ బంధమే కుదిరే కొత్త సంబంధమే చెంగు చెంగు ఆశలన్నీ అంబరాన్ని తాకంగా రంగు రంగు చీరలతో పందిరంతా సందడంట రెండు మనసులు ఒక్కటై వినవేసిన బంధం మూడు ముళ్ళతో కలిసిన ముచ్చటైన గంధం తలంబ్రాలు తారలుగా మెరుస్తున్న చందము ఏడడుగులతో కుదిరిన కళ్యాణపు భోగము చిరకాలం సాగాలి ఈ వివాహ బంధము చిరకాలం సాగాలి ఈ వివాహ బంధము రంగారత్నల కళ్యాణమే రంగరంగ వైభోగమే కన్నుల విందు ఈ బంధమే కుదిరే కొత్త సంబంధమే సిరులెన్నో కలిగున్న సాటిలేని బంధమే చిరకాలం మిగిలేది ఇలలో నా స్నేహమే కలిమితోటి కొలవలేము చెలిమికేమి కొలతలేదు స్వచ్ఛమైన స్నేహానికి అడ్డుగోడలేవి లేవు బాలలైన పెద్దలైన మిత్రులకై పరితపించు మరిచిపోని జ్ఞాపకాలు మారిపోని స్నేహాలు గడదాకా కలిసుండే మిత్రుడేరా గొప్ప మేలు కడదాకా కలిసుండే మిత్రుడేరా గొప్ప మేలు రంగారత్నల కళ్యాణమే రంగరంగ వైభోగమే కన్నుల విందు ఈ బంధమే కుదిరే కొత్త సంబంధమే ranga annaga mudanahawi markuu dhintay kadib waxaan noqonay agoon camal
annaga ninkaas muddo fara badan ayuuna soo hogaamiyey markii aan weynayna rafaad ayaan galnay maanta booskiis adiga ayaa ku jiro soo sidaas maahan dhalinyaro haa waa run kooxdeen maanta adigaa lagaa rabaa inaad hogaamisid aniga ma hogaaminaya hadda ii sheeg bal adinka hogaaminta sidaan dhammi agtiina uga fududahay aniga waxaan ahay qof iska caadiya adinka wax idinla baranaya hogaamintaana ma qaadi karo waa idin barya culeed dusha ha ii saarina fiiri brother runta kuu sheegaya qofna caloosha hooyadiis kama soo bixin isagoo liidhada dadkaad doorteen ugu dambeyn maanta adiga waa lagu doortay soomaan anaga ku doorane waana hogaaminaysaa dhammaantiin waan ku jecelnahay haa waa run nehrow muraali hadalkooda nimankii dhan oo raaddaa aaminsanaya maanta adiga ayay ku rabaan adiga ayaana hogaamin kara nehrow adiga waxaa lagaaga baahanya dhaqdhaqaaqa dhallinyaradoo dhan inaa adkayso ma fahantayne rangaana fursad ayuu siinaya ardayda wax baranayso asaga si fiican ayuu u ilaalinayaa wax walba diyaaran waay ardadana anaa la hadlaayo horta adinka may weydiiseen aniga waxaan u diidaya middaan sababtoo cadaaladda waa shay adag anigana waxaan diyaar u ahay maanta wixii ka dambeeya cadaaladdiinna inaan idiin soo dhiciyo oo aan garabkiinna istaaga aniga mudanahayna asxaabay si fiican ii dhegaysta meeshaan waxaa imaadeen dhallinyaro c b i da aan ka tirsanahay dhahayo annaga waxaa loo baahan yahay inaan iska dhicno dadkaas waxay rabaan xaafadeenna inay fooda ku sameeyaan laakiin annaga kama yeelayna haddaba si fiican la socdo waa iska dhicinaynaa waxay u baahan yihiin ardaydeena inay kala geeyaan qofkii hadlo qofkii doodo qofkii wax sheego midiyay gelinayaan way la dagaalamayaan annagana waxaan doonaynaa inaan iska dhicino dhammaantiin waan ku goobanaynaa waa inaan wada jirna haa waa run rangaa hogaamiyaheenna ayaan ka dhiganaynaa neeruu iyo murali xataa garabkiisa ayay taagan yihiin dooraj ma dhaceehay sheegbe wafalkoolo waryaa ninkii aniga walaalkeega qoortisaa gooyma unukasaa rabti il inaasaa dhiibina habarteeda kasaataa unukaasoo qoorgooheynaa misbeentay waay waryaa wax isku soo shiixay oo isku soo jeeraa masaatiin ninkaana saarabtay inaa wax usaa dhiibatay waxaas xaggaasaa geehaysin meeshaan inta waxaa la soo joogaa hogaamiyeen waa la waxeeyey maanta laga bilaaba anaa bilaabay maasaa dhegtay ninkaanaana wax laasaa doorahaa warkee waa saa cad yahay haddii doorasha la qabaayna anaa hadsaa bilaabay dafnii barlaa muralle iyo defani dhaqankooda run ahaantii ani ilama wanaagsana waxbaa ka khaldan wax ka khaldanaan garan laah laakiin hadalkuu sheegay sax waaye raadaa sharizaaniya asaga ayaa dilay asagana wuxuu dhooyaa nin walaalkayga dilay inuu xil noo qabto lagama yaabo muraaliina asagoo la dooranna ayuu xilka xoog ku qabtay nin caadiya maahan waryaa xanaaq looma baahno wax walboo jirneeru aan ka soo waraysanan kadib aan tallaabo qaadaynaa adiga ma waalantaani oo waxaas inuu ogeyn may kula taha ninkaas wuxuu meeshuu imaan waaye oo la dhudhuumanayaaba taasa haye asxaabayna keena rangaa qorshooyinkan gadaashaada laga maleegaayo adiga ha fududaysanaa ku dhihi lahaa wax kastaa kaaga imaan karo ka soo qaad quraansho gaduud ayaa ku qaniintay maxaad samaynaysaa iska fujinaysaa soo maa haddii aad iska fuji waysa laakiin hore ay kuu sii qaniinaysaa waa labadiina casgaanti iyo muraali lalahay fiirsay u dabaaldegooyeen hal mar miyay amri kartaa aniga cadcad u jarjaraaya waan ku baryaa iyo amar waan kala goygoynayaa dhammaantooda neeru aniga wax walba waan la socda asxaabtaada adiga ayay garab ku siinayaan taasi dhibaato ma leedahay waddankan hindiya waay waa waddan dimuqraadiyadeeda ee aad iyo aad u sarrayso war gumaysta anagana ma haysto shacabka ma aragtay qofkay doonaan way dooran karaan qofkay doonaan ma dooranayaan taas adiga wax kuu taalamaan anigana u taalaa waryaa cunugiyo saa u hadlaysid waa khaladaan ku dhaha meeshaan rangaa ayaa ka taliyo adigana looma baahno sidaasayna ugu qaylisid adiga raaddaa ayaa kuu talin jiray wuuna dhintay dartiis ayaan kuu xishmaynana maya khoortankaa jari boota wada booto kaalimono
warraadaa shalay markuu wax ahaa ha ilaawin annagaa wax ka dhignay annagaa madaxa saaran jirnay wax walba u bayan u samay waryaa guuxaaga wuu dheeraadan ku dhaha haddii kale carabkan ka jira carabka ma iga jire anama carabkaiga jire carab banaanka iskeenaan ku dhahno carraa cune ballan waa xirafkaa wariya aamus saaxib aniga runtan kuu sheegaa hadalkan ay sheegaan aniga wax aan ka ogaay malaha laakiin wax walbay samayn anaa kaa raalgelinaya waa waree warka isii saddexda walaal siyaasiyiinaa noqoteen saana isku garbinaysiin miya mid dab ayuu shidaaya mid kalena dabka ayuu daminaya biyo ayuu waraa gabre aamus ragga meesha ka hadlayaan dumarka shaax baa loogu talagalay bax shaaxaga noo keen tan kale shal ninka sharbaha weyn arooskaaga markuu diidayo walaalkaygaa ka dambeeyay inuu aqbalo markii dambe isagaa la hadlay waryo adiga maxaad uga hadlaysaa sida mar walba qofaan gacantiisa ku jiro kale hadalkaad ku hadlaysid inaad ka fiirsata ayaa ku wanaagsan gacanta hoos u dhig ma waxaad doonaysaa gacmaha inaan kaa jiro meeshan hal hogaamiye ayaa leedahay halkaas hogaamiye walaalkayga isagaana meeshaan ka talinayo qofkii ka hor imaado waan dilaynaa waa balan bisanda markii hogaamiye muraaliya looga dhigay dadkii oo dhan waa ay isku xumaadeen kadibna dadkii waxa ay qorsheen qaabkii lagu dili lahaa ninka lagu magacaabo gaandii hooshaas ayayna ka shaqaynayeen mar walba walaalkayga inaad iga tagta meel hadda fiir walaal waa iga dhimatay hadda bal fiiri hadda kelib baa noqday balan waay walaal qofka dhibaatadan kuu geys inaan kaaga aro waa balan balan waa kaama haraayo wuu ku soo raacayaa
రే మురళి రే ابو نسيت كبر ولكن ولد في ولد ولكن مسوى ولكن مسوى ولا ولد ولكن هذيك استجي انا جو بلا ما تكاسد يا اخي استجي كله يا محمد كله نسيت حسمرتها بل في ولكن ولد هديل الدليل هنا وانا استجي يا كله لها هل قفض الذي صمها وبلن لباطن قفض واريا الدنيا وبابينا يا وقوبيا ايغنا وقوبيا حلال اي لو دلايا اسكت يا اخي ما نافع بلن واي ولكن قلت له سمان انا عندي قبل بعد سمان انا حتى كم مرقيسنا مرقنا افكو كليه واي قلبي ما جرتو يا اخي استجوا كبريا ما انت قبل بعد سمالهن وبلن قف والبو عرب ايان كجرايا او دمشد ولكن كدنبه ما يودي لين كور ولكن ويت بس واي هذا الكلمه ما استجوا كبريا واي شو بس ما يودي ولكن ربما انا تسلمي ما له استجي يقفق كبريا يقفق ولكن ونص عرايا بلن واي ولكن استجاد ما هيكنا وصوبا بينا بلن واي انا الله يناي دمانتو انا الله يناي وكبريا هذا الكلمه ولكن استجي وكليا اديك فير بلن واي هلفكودا ودوبنايا وكبريا استجي صدق وريا dhegeyso amar warkaygana si fiican u dhegeyso aniga u malayn saaxiibtinimo hadda inaan kugu imaaday awalka hore saaxiibka waan ahaa balse dhabarkaad iga toogatay hadday wixii ka dambeey u diyaargarow cadowtinimadeena libaa hurdo ayaad hurdada ka kicisay hadday ku dhammaatan ku dhahay nafta ayaan ku dhaafinayaa waa ballan aniga hadalkaygana aaminta isku day dilka gaandii loo geystay aniga ilaa hadda waan ka murugsanay runaantii been ayaad sheegaysaa wariya cid ku aaminaysana ma laha aniga waan ku aqaana adiga waxaad tahay fulay dad ayaad soo adeegsanaysaa markaasaad isaga ka dhigaysa daacadmadan kaa yeelay ma laha war hedha mala socotaa adiga wanaaggaaga wax badan inaan ka soo taliya aniga mustaqbalkaaga ayaan dhisay adigoo gabadhan ka cabsanaysid ayaan aniga kuu guuriyey wax walbaba wanaaggaaga waxaan u sameeyey adiga in aad saaxiibkayga tahay balse qof xun inaad tahay maanan ogeyn haddaba si fiican ayaan ku ogaaday ballan waxaa igu ah xumaantiina sida ugu dhaqsiyaha badan inaan soo afjaro mid ayaan idiin ugaarsanayaa difaac gal ayaan ku dheelaaniyo దేవినేని చూస్తూ ఉండిపోడు అన్యాయాన్ని దేవినేని దాట తీసి చేస్తాడు అక్రమాలని ఒక కంటిలో కరుణ మరు కంటిలోనే రౌద్రం పొంగు కృష్ణా నది రూపువాడు నమ్మినోళ్ళ కాపాడే కమ్మనివాడు కమ్మనివాడు దేవినేని చూస్తూ ఉండిపోడు అన్యాయాన్ని
యువసేనకు స్ఫూర్తిదాతడే ఎరుపెక్కిన నవచరితకు నాయకుడతడే బెజబాడకు అడుగడుగున అడుగు జాడతడే బెదిరింపుకు సడలిపోని బెప్పులి పులి అతడే ఒక సైన్యం అతడేలే ఒక సమరం ఇంద్రాకి రాత్రిలాగా కనిపించును తన ధైర్యం దేవినేని చూస్తూ ఉండిపోడు అన్యాయాన్ని దేవినేని తాట తీసి వేస్తాడు అక్రమాలని మదమెక్కిన రక్కసులకు సింహ స్వప్నమతడే విషనాగుల పన్నాగం విప్పువాడు అతడే రక్త చరిత చెరిపేసిన క్రాంతి దర్శి అతడే ఓరు చరులు ఈ దేశిన మార్గదర్శి అతడేలే వీరత్వం అతడేలే భవితవ్యం కనక దుర్గ చేతిలోన కదలాడే త్రిశూలం దేవినేని చూస్తూ ఉండిపోడు అన్యాయాన్ని దేవినేని తాట తీసి వేస్తాడు అక్రమాలని حقيقة دقال مافيد وين أيا كدعي بالرادة قبل كأندل برادشنا والول فربضان أيا نقا هاتلي رنتا دواي دول كاسن دول مافيا أيو نقضي دقال بأن أيا كدعي دقال كاس دوسي سعود بوليس كتا وحما كخوان كران دول شلساري أيا لدري كدبنا غانغا dilkan taaka u soo badanaya sida aragii oo kale ayaa la soo baabi'inaya dagaalka wuxuu ka dhaxeeyaa naaru iyo ranga gandi dilkiisa kadib haddii dabkan la damin waayana magaalada oo dhan ayuu ku fidayaa cid damin kartana hadhow ma lahan sibendera annaga wax walba aan sameeyno waxaana laga rabaa aqligeena inaan kaashano taliskan annaga ayuuna la xisaabtamaya saana macquul maahan wax soconaya loo baahan yahay tali hadalkaaga run weeyaan tali haddii unug tilaab aan qaadi weyne dad badanaa dhimahaysa kuuro awkay tali si fayla indhaguunshay adig go'aan fayla iyo qaadatay waayahay aniga haddeertaan mudana britfi ayaan la kulmayaa weliba shiri degdega misku raacne anigu manina raadaa dilka gaandi inuu lug ku leeyahay qofkaasna qof mutacallim oo waxbarashadiisa hooliiska daba ordo arrimaha noocaas in uu sameynayna aniga ila ma aha kulli waxbaa qaldan tali anigaba sidaas ay ila tahay waxay nala tahay weliba raggiisa inay dilkan geysteen asagoon waxba ka ogeen oo amarna arrintaada waay aniga dilkaas inaas wax ka ogyaa oo sheegsana labadooda waxay ahayn laba qof saaxiibo oo magaalko idin laga yaqaano laakiinse dilka gaandi markuu dhacay kadib ayay labadooda kala go'een magaaladana aad ayay u gubanaysaa labadoodu in la soo qabtaa la xiraa kadibna wax walba wax laga yaabo markaas inay hagaagaan walbadan walmatara lamadiyona way hagawade taliya labadooda aan soo qabanayna صح واتلي مركز كدب دبك ودمها سيدي هات بادرتان إلى قصة وحول بوسكر دب أيانيك سوسعسينا هادرتان وبحايا السلام مدن بارك سيدة هاي وفعنا أنو وفعنا سمعت قلنا واي إيه فريس أيوة إمكان فريس أيوة وكفالة دين نهيرو يرنجا ما قرنسا أنا ضمننا يبكوري inaad soo dhibto looma baahneen telefoon la dad soo diray horan kaaga soo diri lahaa marka telefoon ay wajibkaaga gudaha kaliya way anoo si tagay hadde ma salaam hadi wax la soo hadlayna dhibaato ma asir wax yaano waxa weeye walaalka gandiya markii uu ruuxayo ka baxday baashi de anagu waan ka xumaanay midaasi marka waxa weeye maartay halka waxa kugu imaadeen ku tacsiido iyo dabada xaan maartan ka shufo iska raali noqotay baasha qalbiga jalci oo gadaal u laabay naadeer xogaa bal murugta qofaan ugu baahnaa inuu i tacsiiyo ma jirto
maanta aniga waxaan u taaganahay dilka walaalkayga loo geystay inaan rangaa ka aaro rangaa asagoo fulayoo baxsanaya anaa dib u soo celiyo garabkiisa istaaga balse dhiigi cab ayuu igu noqday asaga eeg aniga mid baan kuu sheegaya waxaa weeye labadiinna ma garanaysaa fursada weyn baad haysataan baan kuri fursadda weyntaa waa inaad ka faa'iidaysataan sababtoo ah xisbi weyn oo weyn baa idin sugaya oo teleguudi sam la yidhaahdo idinkaana hormuud ka noqonaya geesiyaashiisii baa tihiin hogaamiyaashiisii baa tihiin marka waxaa loo baahan yahay nasiibkaada inaad ku kalsoonaato xaaladda aad dejisa haddee waayahe ninkan la yidhahda rangaasoo maaha anaa wacayoo la hadlaya baan kuri waana kafaala qaadaya arrintiisa anaa madaxa saaranaya handamuri wuxuu soo booqday tarakara ama rao markaas kadib xisbiga talaguu bizawanda isagoo si toosa ugu imaaday asagana aad iyo aad ayuu u daneynayay wuxuuna sida ugu dhaqsiyaha badan la kulmay xisbiyo fara badan taasoo uga dan lahaa si uu caan ooga dhigo xisbiga talaguu nehru woo la kulmay wuxuuna rabay nehru inuu xisbigiisa ku soo biiriyo si xisbigiisa uu u ballaarto weliba magac iyo maamuus oo magaalada oga yeesho shacabka quruxda badan ee andara tregan la dhahayo waxaan ugu imaaday in aan hoggaamiyo maadaama xisbigayga uu yahay xisbi daacad ah oo jecel horumarka dadka inuu ku hoggaamiyo dadka meeshaan degganna maadaama ay yihiin dad dulmiga diidan daacadnimadana rabo cid walba oo dulmiga ka soo hor jeedda annaga waan soo dhowaynaynaa garabna waan siinaynaa idinkana waxaan idinka rabnaa xisbigayga in aad ku taageertaan daacadnimo ha soo galo waan ku salaama mudane waan kaa qaaday aadaan ugu faraxsanahay inaad ii timaado waana farxad weyn oo u soo hoyatay reer talaguu maadaama ay yihiin dad wanaagga jecel waxaa laydinka rabaa in aad noqotaan dad hoggaamiyayaal ah mustaqbalka wax badan ka beddela talaguuga iyo dhaqamadooda adigana nin wanaagsan ayaan kugu ogahay inaad tahay wax badanna waad u qabatay dadkaaga anigana waan kugu taageerayaa gabdhahaan aad u jeedidna waa gabdhaha annaga horumarka naga sugaayo mustaqbalkooda inaan qurxinno naga sugaayo haddaan annaga u wanaajinin yay tahay cidda u wanaajinaysa dhimasho badan ayaa dhacday waan ogahay anay tuuladan wixii ka dhaco dhan waan maqlay gangaa kadib dad badan ayaa dhintay waxaasoo dhanna waa in la saxaa hadda waxaan rabaa inaan u tago mudane shifaangey idinkana waa inaad garab igu siisaan in wax walba si qurux badan aan u dhammeeyo si tuuladan ay horumar u gaarto ma jiri doonaan maanta wixii ka dambeeya dad isdilaayo qof walba wakhtigiisii wuu dhimanaa waan ognahay laakiin inuu qof kale dulmi u dilo taas ayaan ka soo horjeednaa ఎగసింది పొంగిన జనతరంగం పరవళ్ళై కదిలింది పరవశించి ప్రజా ప్రవాహం
ugu dambayntii waxaa guulaystay nehru wuxuuna ku guulaystay hogaaminta bisawanda wuxuuna helay codad aad iyo aad u fara badan shacabka magaaladaas joogana aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin asaga maadaama uu xilka u qabtay wayna dabaaldegayaan farxaddooda lama soo koobi karo waxayna diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan walaalkaygu dilaya soo maahanna weliba wuxuu doonaya magaalada inuu ku raaxaysto sida beertii oo kale ayaan u jafaayaa sidaan u jafaayo waxaan u ballan qaadayaa magaca hooyadiis xitaa inuu gafo waa balan walaalkayga qofkii dilay inuu iga badbaadaynin dhimanaya cid badbaadaysa habeeraatee ma lahan walaal waa runtaada qorta ayaan ka wada jaraynaa goynina qortiisa waa balan qortiisa la jaraya sofiir walaalkayna dili ma la dhaafayo భారతం ఇది అభిమన్యుని ఆవేశం రంగా నెహ్రూ స్నేహంలో రణరంగం ఇది కలియుగం నిత్యం మారణ హోమం కురు పాండవ రాజ్యంలో కురుక్షేత్రం ఎవరికెవరు శత్రువులో ఎవరికెవరు మిత్రులో తెలియని సందిగ్ధం పాపమేదో పుణ్యమేదో ఓటమేదో గెలుపు ఏదో తెలియని కాఠిన్యం ఇది భారతం ఇది అభిమన్యుని ఆవేశం రంగా నెహ్రూ స్నేహంలో రణరంగం రక్తానికి రక్తమే సమాధానం ప్రాణానికి ప్రాణమే నినాదం ధర్మరక్షణార్థమై చేస్తున్న యుద్ధమిది రాక్షసులను సంహరిస్తూ రాస్తున్న చరిత ఇది నెత్తురంత ఏరులై పారాలి నేడే 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 కొండపైన దుర్గమ్మ నవ్వాలి నాడే నవ్వాలి నాడే ఇది భారతం ఇది అభిమన్యుని ఆవేశం రంగా నెహ్రూ స్నేహంలో రణరంగం ఒక వేటుకు వేసెయ్యాలి ఒక తలకు తీసెయ్యాలి ప్రతీకార జ్వాలలను రక్తంతో ఆర్పాలి ప్రభాత కిరణాలతో ఎర్ర పొద్దు పొడవాలి నరకాసుర సంహారం జరగాలి నేడే 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 మహాకాళిక అభిషేకం జరగాలి నాడే జరగాలి నాడే ఇది భారతం ఇది అభిమన్యుని ఆవేశం రంగా నెహ్రూ స్నేహంలో రణరంగం hado biko markii simaadayso waa okay ataatiin mahaya mudan ashiris raja meeshan joogo okay way soo gali ay ma sidee tahay murali waa ka fiicana
asaasaan kaa rabaa run ahaantii adiga warkaaga waa isoo gaari shayaadiinaad leese ma ogido war shayaadiinta in la leeya waa loo baahan yahay marka adiga waxaa loo baahanay inaa faraxdidaa la rabaa inaa murugootid ma aha dadaad baabi'isi oo wax heeni oo xunyaal ahaad baabi'isi adiga marka qof ragaa tahay oo karti laha tahay anigana walaalkaygaa tahay mar walba inaa kusoo dhawaystaa loo baahan yahay aana hab ku siiya adi camalne laabteedaad ku fiicantaa warya laabteeda soo gal maxaad sugostaa walaalkayga murali saasaan kaa rabaa aniga waan kugu faanaa murali waa sii baxaa intii la ogaana mugo haye marwo horta dadka idil waan baabeeyey raagaa oo kaliya dhiman isagana waa u dhammaynayaa hadda waxaan rabaa ninkaaga fariintan quruxda badan inaad iga gaarsiiso qofka sideedad aan dilaya isaga waay mana iga badbaadayo waxaan ku duceysanayaa mar walba inaad noolaato aniga muhiimaddayda waxay tahay mar kasta inaa ii noolaato iyo caafimaad qabto cadowgana waxaa laga yaabaa meeshaanoo joogno xitaa inuu nagu soo weeraro adiga adduunka haddii aadan joogin anigana ma joogi waa taasaa muhiimadda weligaana ha iloobin ma fahantayne haddii bandabaas iyo korovaas gadaal loo celin lahayn saacaddan 5 ayay ahaan lahaayeen bandabaas asigoo 5 qof dili kara ayuu 100 qof dili kaas ayaa la dhahaa dagaalka xisbiga ka dhex bilowda si fiican muu fahantayne maxaad ula jeedaa midaas sidiisa bannaan cadow inuu noolaado ma ahan cadowga haddii uu sii noolaado wax badan ayuu qasaayaa ma fahantayne moraali waa inaad dishaa moraali dil ayaan ku dhahay gangaa waxaan kuu sheegayaa aniga ninka markuu hogaamiye yahay looma baahna jiljilaac waa inaad seefta gal kala baxdaa aad cadowgaaga iska dhicisaa runtayaan kuu sheegayaa mar walba dhagax hortaada taagan waxaa loo baahan haddii aad siyaasad ku jirta inaad iska horleexiso bini'aadan ayaa nahay bini'aadankaane laguma kalsoonaan karo wax kasta ayay kugu samayn karaan qaasatan murali inaad iska ilaalisid waaye muraali intaskaaga hormarin waxaa la rabaa inaad ad uga hormartid haa annaga ninkaas waa inaan iska dhicinaa haddii kale godkeenna ayaa biyo noogu soo galaya 36 qof oo raggeenna ka mid ah ayuu baabi'iyey annagana meeshan ayaan fadhinaa waa inaad fadhiga ka kacdaa oo ninkaas cadcadda u soo jirta haddii kale aniga u fasax hilibkiis ayaan meeshan keenayaa waryaas buumi istaji sidoo aada maxaa waay ninkan hogaami qaran waay waryaa saasna ma loo baahna ninkan inaad dirdirtid ma la rabo arrinta markay saa camal taagan tahay aqliyaa loo baahan yahay xoog ma la rabo xukuumadda dhexe intay jirtayne ashooshoodii barees markay ka hadlaysa raggii la laaynaayay adiga intay jirta mii sheegi kartaane murali raggeena ayuu dilay soo ma ogidne haddii aan laga aarsanin maanta wuu nagu kortubanaa anagana midaas kama ogolaanayna adiga horta waxaa tahay looyar xun gabarey adiga sidaa inaa ku hadashid ma loo baahna adiga isdajiyaan ku dhihi lahaa ninkan waxaa la rabaa hogaamiye qaran inas naqdo wasiir inoo naqdaa la rabaa dad badanaa ka dambee rabo ninkan haddii waxyaabaha aan ku dirdirtid maxaa waay waa dhuma haddas dhumana ma ka soo naqi karaa ku dhahay nin mar haddas dhiig bartan bes waayaa ku dhahay annaga ninkan waxaa u baahannahay inuusna hogaamiye oo dalkaanna wadda toosan iska soo bixi asigoo wax walba maskax ku raadi kara ma loo baahna xog inas ku raadiy aniga raggayga hal ayaa loo laayay sababta loo laynayana waxay tahay waxay u muudaan aniga inaan ka dambeeya dilka loo geystay ninkii la dilaa ee gaandii xataa nihiru aniga wuu igu xumaaday wuxuu ii maleeyaa aniga dilka inaan ka dambeeyey aniga asi walaalaan nahay qaladku asii fahma haddii aan booskas ku jiri lahay aniga qaladkan waan fahmi lahay laakiin diyaar umii halaan wixii ka dambeeyo muraali iyo hooshooda dhan inaan ku sii jiro waxaan diyaar waay howshaan inaan meeshaan kusoo afjargabi ahaanteed oo aan iska dhaafo midda kale NTR waa nin aniga ixtiraam oo igala dhexeeyo cadgoosni howshaan kusii socota maro inaan soo afjara ayaan rabaa marka ku barya adiga iska bax okay anuu iska baxa inaa isku wargeliyaan isku daya jaaf nin cadow iska dhigaya waa nin waalan waa tugtug dhalay maafiyada magaalada ayuu hogaami u yahay wuxuu jecel yahay in laga dambeeyo laakiin midaan mid dhexsa maaha hadda maxaad u baahantay ii sheeg bal hadal murali asi fiican ii dhegaysa aniga rangaa dilkii gaandii wax iska ogaay beeraatee ma jirto adiga markaa silciisina
wax ma ka ogeyni maahin waa kuu imaalahay ninkaas nin fiican waaye si fiican hadalkeyga uma waryaa bidarmin carruur ma kule kaane war anaga dad waaweyn ayaan nahay sheekadan markii aan yaryarin ayaan nagula sheekayn jiray aniga 100% waxaa la socdaa dilkan asagoo kaliya inuu ka dambeeyo qof kale kama dambeeyo waa isaga murali adiga isdaji aniga xanaaqaaga waan dareemi karaa ma loo baahna xiriirkaasi fudud inaad kusoo afjartid murali qof fiican aan kuga ogaa aniga qof xuma kuga ogeyni markii waryaa awalkaa tahay laabin waxaaga xadgudub waa idib lahow xadgudub haya arkay aniga runtan ku sheegoya maxaa waad waxay u laadlos gabdhaha la kufsado kaliya arrimahooda waa inaad u doodaa arrimahan uu ka waaweyn shaqadaadana mahan haddaba da'daada ayaan kugu ixtiraamaya mooye basadaada dirin dhegan laha kadibna waa seexan laha waryaa murali adi maa basaa in wadloosid waryaa soddii lix qofaad aad dishi ma ogido markaas gaantii dhinta kadib anigana heshiiskiina dartiisaan u imaaday aniga wax kale ha ii fahmin nin nooca oo kale la soo gata aniga waan aqaana qaab kale loo hadlaayo ninkaasi dilaa weyn waaye walaalkayga isagaa dila adiga ha badbaadin waa balan sidaan u dilaya bidaartan aan ka soo bixinaya ninkaynaba abukaataan si walba iskugu dayo labadaas qoys inuu dhex galo oo weliba u heshiisiyo wax walba ay ku adkaadeen moraaliina wuu ka diiday maxaa yeelay nin madax adag waa moraali markii la dilay Devni Moralina Fangavati qorshii lagu dil lahaa ayaa la degay sanad kadib run ahaantii dadka xaafadda mid ka mid ah ayaa wuxuu noo sheegay in Morali asagoo raadinayo ninka dila walaalkiisa si uu uga cadgoosto ayuu asaga naftiisa ku waayay ugu dambeyntii Ranga wuxuu noqday magaalada diiqeeda wuxuu noqday nin shacab weynahoo dhan
ay ka cabsadaan magaciisa wuu weynaaday shacabkoo dhanna way ku wada qanacsan yihiin howl walbana siday tahay ayaa loo qabanaya markuu asaga amro rangaana wuxuu helay hogaamiye waalan sida ayabaas oo kale wax walbana garab ayuu ku siinayaa rangaa middaas waxay u noqotay guul aad u weyn rangaa dowladdan cusub adiga xubin muhiima ayaad ka haysaa waxaad ogaataa qof walba in laguu soo adeegsan karo dadka waa inaad iska kala ilaalisaa xitaa kuwa xisbigaaga ka tirsan waxaa laga yaabaa in lacag lasoo siiya ay rabaan inay ku dilaan ma fahanteen cuntadooda ha cunin dadka ka fikir dadkana si fiican u ixtiraam weliba dadka kaa weyn rangaa caan waaye shacbiyadda dali askulee waxaa ka badanta mumbay askuleeya nin weyn way raashin iyo waxaa loo jooga masku dooda waxaas ceeb waay sharaftiisa meel ugu dhici mid ayaa jirto xisbigan shuuciga aniga waxaan u soo galay dadka aan jecleen inay jeclaadaan tan kale aniga waxaan hubaa fikirka aniga maanta aan hayo haddii dowladda aan ula tago fikirkayga marnaba inaysan diideynin oo ay igu waafaqayaan kadibna ay qaadanayaan rangaa nin tagay ayaa tahay cid gadaal kuu celin karta ma lahan weligaa haniya jebin teeda kale dadka masaakiinta ah iyo hooyooyinka masaakiinta iyo carruurtani wax badan waa inaad u qabataa mar kastoo aad adiga daciifnimo dareento waxaad isku dayda inaa aniisa xasuusato awood yeelo dadka masaakiinta ahna mar walba garab inaad siisid ayaa kaaga baahanahay ilmaha weliba waa masaakiin uwaxa dalka waay inaad wax u qabatidaa rabaa waxbarashadooda iyo sidoo kale noloshooda iskuulaadkoodana inaad kontarooshid adigana lug gadaal ha u dhigin run ahaantii dhimashadii rangaa dhibaato weyn ayaa anaga nagu abuurtay haddii adiga shaqada aan ka tagtidna run ahaantii xaaladda way sii adkaanaysaa may tali middaas ani kuguma raacsani ruqsadaa hadda haddii aad qaadato waxaa lagu malaynayaa
dilkan inaad adiga wax ka ogeed marka ka laabo xaafadda lagu magacaabo janduur iyo krishna dhibaatadooda zaa'id waaye wayna sii fara badanaysaa waxaa loo baahan yahay marka in wax laga qabto taliya sida ugu dhaqsiyaha badan horta ninkan waa uu dhintay mana soo laabanayo buuq fara badanna waa uu taagan yahay anigan arrintan waxa ka qaban kara ma lahan waxaan doonayaa inaan ruqsaysto ruqsadeeda ra-iisul wasaaraha uu iga diiday waxa sameeyana ma aqaano waxaana ila wanaagsan aniga arrintan inaan faraha ka kolley arrintan xisbiga ugu weyn ayaga ayaa ka hadli doono kaamuwa kaamba waxay ka dhahaan ayaan sugaynaa dhibaatooyinka dhacayna annagana waxaan isku dayi doonaa inaan wax ka qabanno dadka baswaata jooga waxaan ka ogaaday hogaamiye cusub waqti xaadirkan inuu u soo baxaayo weliba hogaamiyahaas waa hogaamiye aad u wanaagsan mudana shaabiine ninkaas uu keliya ayaa soo dirdiraya waqti xaadirkana taagan yahay mideeda kale xisbigaas waxaa maamuli doono cadow garanka wuxuuna rabaa inuu kiiska dusha naga saaro weliba xisbigeena sidaas ayuu doonaya mudana run ahaantii annaga mar walba waxaan diyaar u nahay adiga iyo dowladdaba annaga garab in aan siino safandar saava qodobka 144 ayaan magaalada ku soo rogaynaa taasoo ah bandow mudane wasiir intii aan noolaato